gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa maanta waxa uu kormeer ku sameeyay goobaha ganacsiga ee magaalada Baladweyne waxaana uu tagay suuqa sarifka magaalada iyo waliba kan qudaarta lagu iibiyo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana gudoomiyuhu wax ku iibsaday lacagta Soomaaliga oo in muddo ah magaalada markaas laga isticmaalina waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in ganacsatada ay dadkooda u turaan ayna qaataan lacagta Soomaaliga annagu ka maamul ahaan waa qaadanayna oo waa hadda aan sarrafta anigu qofka diida lacagtaas ee qaada diida waxa la kulmi doonaa cinqaab waxaan u qaadanaynaa dadka cunaqabataynta ku haya magaalada inuu dadka shakhsiyaadka ay yihiin hal la qaato lacagta shilin Soomaaliga waxa mamnuuc naga ah lacagta ka timaaday dhinaca Puntland ee aan qaada jirnay awal lacagtaasi waa mamnuuc lama qaadan karo waxaan qaadanaynaa koonfurta Soomaaliya lacagta laga qaato oo ummadda ka dhaxaysa waxa baaba'ay dadkii danyarta ahaa waxa baaba'ay kuwii jalaatada iyo gadi jiray cadaga iyo maxay ku raadayay shukulaatada iyo gadi jiray adeega bulshada oo dhan waa xirmay adeega bulshada si adeega bulshada oo u furmo lacagta shilin Soomaaliga waa in la qaataa waxa mamnuuc ah oo aan lagu dari karin lacagta aan ka soo hadalna lagu ma dari karo inkastoo sida muuqata dadka ay u heelan yihiin isticmaalka lacagta Soomaaliga ayaa haddana Maryan Macalin Maxamuud oo muddo badan ganacsi ku jirta ayaa waxa ay ka hadashay sida ay u aragto isticmaalka lacagta Soomaaliga waa qaadanaya haddana waa qaat waa u jeedaa ilaa saakan gadaa ilaa shalan gadaa ayadon amar dadka la siinaa baaniga dadka ka hor gadaa waxaan ugu baaqayaa ganacsatada inay lacagta Soomaaliga qaataan maadaama aan Soomaali aan nahay dalka Soomaaliya gibiyahan ee lacagtu ka socoto gobolka Hiiraan iyo gobolka yaryar oo kale ay kaliya xoogaa laga diido waliba aniga dadka waxaan ku dheerahay dadkoo diido ayaan qaada jiray sababtoo ay tahay lacagta reer Muqdisho ay qaataan oo laga ogol yahay gobolada iyo lacagta kale tooda macnaha fiirsada aad aan u kala aqaanaa maadaama aan reer Muqdisho ahay Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Baladweyne.